I'm a bit miffed tonight. Waan yara xanaaqsanahay caawa. I'm a bit miffed tonight. Miffed means annoyed or angry. Thanks. I grew a bit during the trip, but I shaved it off when I came home. Waxaa igu baxay garka intaan safarka ku jiray, laakiin waan iska xiiray markaan imaaday waddanka ama guri. Life, noloshu, is the most difficult exam. Waa imtixaamka ugu adag. Many people fail. Dad badan waa ay ku guuldareystaan. Because maxaa yeelay they try waxay isku dayaan to copy inay iska yeelyeelaan ama ay koobiyaan others kuwa kale. Not realizing ayagoo aanan xaqiiqsanayn ama aanan garanayn that everyone is test in cid walbay ama qof walba tijaabadiisa is different ay ka duwan tahay tan kale. Life is the most difficult exam. Many people fail because they try to copy others, not realizing that everyone's test is different. Life is the most difficult exam. Guys, thanks. New words eraya cusub. Sip waa kabasho. Jug waa qurqurinta biyaha. An example, I'm going to sip the water. Please get me a glass of water to jug. Fadlan ii keen galaas biyaah oo aan qurquriyo. Please get me a glass of water to jug. Jug waa qurqurinta biyaha. 10 of the most confusing trick questions. 10 su'aalood ee ugu jahwareerka badan ee dhagarta. With answers iyo jawaabahooda. Except two marka laga reebo labo. What never asks a question. Wax aan marnaba ku su'aalin. But gets answered. Laakiin laga jawaabo all the time. Waqtiyada dhan. What never asks a question. Wax aan marnaba ku su'aalin. But gets answered. Laakiin laga jawaabo all the time. Waqtiyada dhan. What is it? Maxay noqon kartaa? Waa your cell phone. Waa your cell phone waa telefonkaada. The second question su'aasha labaad. If you have one, haddii aad hayso mid, you want to